soo dhawaada saaxiibayaal markale isku soo noqon wanaagsan maanta halkan waxaa kasii doona taxnaheeni noo sii socday intaan xaqadeena taxnaheeni gudaha waxa ka codsan sidii caadigana muuqaal loo nagreso inaa subscribe weyn aad iyo aad u amaasantay daawade habeenkii Zombiig wuxuu tay soo sawirkaas soo muujinay gabadha dhimanaysa ku caantu qaasin mobilka Zombiig ku arkarooyinkiisa markii dambaaru kula taxfiiskiisa wuxuu arko xubafooda ah kalishiida ayaa la weesashadii ku daabacay baraha bulshada kaasoo tasmiir rasiin wuxuuna garwaaqsan inuu xafiiskiisa wuxuuna qiyaasa in si wax kooga taariikhdiisa markuu wadiisiin wuxuu ku yiri adiga dilka badhaasi Zombiig uu yaa markuu maqal hadalkaasi wuxuu dareemay Zombiig ku noqday dilka badhaasi awgiisa markaas kadib uu sir inuu noolaado wuxuu damacay magac ka saar mashiin dilulis isku dilo laakiin mashiinka yaa jab waxaan ku dhacsho koronto markaas uu go'aansan magaalada ka tagay dhan kalsooniyo waxay la kulantaa baa gabadha dhimatay guri gabadha waxay ku artay sawir Zombiig ku jiro aabay gabadha wuxuu ogay Zombiig waxa ilaalaa gabadha yar dambe Sooniya waxay ogaatay runta ku saabsan taariikhda Zombiig waxayna doonaysaa in si degdeg ugu sheegto Zombiig balse markii gurigiisa tagtay Sooniya dal waxay ka fiirnay Zombiig xafiiskiisa balse isaga halkaas muusan joogin miisku waxa ay sawirnay yarasiin markaasay go'aansan tagsin gurigiisa waxay fariin ugu dirtay Zombiig si uu wargeliso Zombiig wuxuu inuu joojiyo Sooniya laakiin telefoonkiisa ma lahayn signal soo badbaadiyo Sooniya Zombiig wuxuu tagay gurigiisa dhan kale waxaana rutas in si xaaskiisa ay xireen Sooniya waxayna Sooniya u sheegay xaqiiqada inay dileen gabadha yar si wuxuu u sheegay xaaskiisa inay disho Sooniya isagoo baxaaskiisa markii ay timsi u disho Sooniya si aqal bay gacmayskiga furtay waxay la dagaalantay weydin waxay indhaha kaga shatay buufin dibna u baxsay banaanka Zombiig kula kulantay Sooniya si degdeg u sheegtay Zombiig in si xaaskiisa ku dil gabadha yar Zombiig wuxuu ilaaliyay gabadhaasi markii Sooniya baxsin wuxuu ogaan gurigiisa uusan ahayn amaan wuxuuna isku day in xaaskiisa uu la baxsado laakiin booliska guriga hareeraha ka qabtay xaaskiisa guri ku jirta ayaa la xiray si wuxuu ku qasbay inuu baxsado isaga xaaskiisa ka tagaya laakiin si wuxuu go'aansaday inuu arguto wuxuuna fariin u diray Zombiig kuna cusub meel cadla si uu ku yiri baabuurka waxa ku jira diika caawin doonta in taariikhdaada ogaato markuu Zombiig furbaak baabuurka uu qarxay si wuxuu u maray inuu Zombiig u dhintay laakiin si moogin Zombiig u yahay mid aan dhiman karin qarax kadib Zombiig wuxuu si dhamaan wixii hor dhacay wuxuu helay gabadhaasi maalintii Christmas ay abdood gabadhii Zombiig markaas bani aadam wuxuu u baxay inuu badbaadiyo gabadha laakiin si ay saxkun ridgud wuxuuna ka tawtay caloosha rasaas raadkii wuxuu ka muuqdo calooshiisa Zombiig wuxuu istaagay caraysan wuxuuna u tagay si uu dilo wuxuuna bilaabay inuu garacsigo la maxaa u dishay gabadhaasi si waxba uma sheegin wuxuuna tooganay Zombiig laakiin Zombiig uu ka ciyaar mar kale markii si agin toogshada ban Zombiig aysan dilin wuxuu damcay madax ka toogto taasoo dhab ahaantii dilay Zombiig haday ku dhacdo xabadaasi laakiin markaas hooyada siina hooyada dhabtay Zombiig ayaa soo gashay waxay u yeertay magaca dhabtay Zombiig Minho siina haweenaydaasi wuxuu mooday hooyadiisa balse waxay hooyada dhabtay Minho Zombiig waa Minho wuxuu ku dilay si xanaaq u qaaday dhimasho hooyadiisa maalintii waxaana la mudin aska hooyadii Minho dibna Minho wuxuu u sheegay Sooniya inuu sii wato shaqadiisa sirdoonka wuxuu u sheegay inuu magaalada ka tagi doono wuxuu xafiiskiisa ugu tagay dhamaan lacag uu shaqeeyay isigana wax lacag ama cunto kama uusan qaadanin markuu u gaajoodo wuxuu galay xaaladii Zombiinimada wuxuu isku dayay inuu qof laakiin uu suuxaya gaajo darteeda markuu soo toos wuxuu ku sunay xafiiskiisa hortiisa waxa yaal digaaga badan wuxuuna ka cabsan qof dil laakiin Sooniya ay tim waxayna tiri marka kaajisanta waxa la wareegay xaaladaada oo Zombiinimada waxa laga rabaa in si dhab wax ka meeysan naftaada anigu waxaan ku caawin doonaa Sooniya waxay horteeday digaag badan waxayna ku xirtay kursi waxayna ku tir 3 maalmood ay halkan joogaysaa digaagna ma cundo iyada waxay ka ilaalinaysaa dibadda kadib 32 saacadood Minho wuxuu galay xaaladii Zombiinimada Sooniya waxay arkaysaa in markuu Zombiig noqdo xoog badan wuxuu iska xiray xirigii wuxuuna bilaan digaagiisa bahalnimo cuno markuu arkay Sooniya wuxuu u dhaqaaqay soo cuno laakiin Sooniya waxay dib u socotayda ka cararaysaa koor intuu suncun Sooniya waxay qaadaysaa karanta waxayna ku dhuftay madaxa si uu suuxo markuu soo taas Sooniya waxay u sheegaysaa in xaaladiisa Zombiinimada ay khatar tahay waxayna ogaa sirta lagu xakameyn karo waxayna muujisay karanta xafiiskiisa adiga dikal waxay dib badbaadin doonaa sida ayaa Minho u go'aansan markale inuu qaato magaca Detective Kim wuxuuna Sooniya u sheegay in mudanta in loo ogaado ninkii dilay maalintaasi Sooniya waxay horu baaris arintani waxayna ku tiri qoyskiisa uu ka baxay wuxuuna u tagay xabaasha BC halkaas waxa ku dilay yiraahdo Naban ninkaas wuxuu ku xiriyay xabsiga Sooto wuxuu ku risun kiimika buuraha laakiin hadda waxa nolol tusay isaga xabsiga laga sii daayay ninkii wuxuuna ogaa in Detective Kim uu nool kasto hor u dilkay say u baaran dilkii Detective Kim Sooniya Minho waxay yimaadeen sununkii ugu dambeeyay uu tagay Kim waxayna ogaan in
ninkii Mubaarin loo magacaabo DRno oo isbitaalkiisii ku sameeyay tijaabooyin xun lagu hay xoolaha marka ay tageen rugta caafimaadka DRno Minho wuxuu gartay ninka inuu yahay midkii dilkiin halkaasoo sarkaal sardoon daba socday Minho Sonia wuxuu u sheegay DRno Minho uu yimid rugtiisii caafimaad DRno wuxuu u sheegay sarkaalka inuu qabto Minho kalkii wuxuu isku dayay waxban wuxuu u dhigay dibina koronto ah wuxuu u diyaaray rag badan gurigiisii Minho waxa uu la dagaalamaa laakiin mar walba ku guuldareystay inuu qabto Minho ugu dambeyn wuxuu ku yiraahdaa DRno qaada lacagtaada aniga ma qaban karo shaqadaada wuxuu u sheegay inuu Minho u kan bin aadam wuxuu ku yiraahdaa wuxuu igu soo sidii balsi uu cuno xitaa waniisi aan kala baxay wali uu nool yahay DRno wuu farx inkastoo shaqadiisii la qaban waayay sababtoo hadda wuxuu helday DNA-ga Minho kadibna wuxuu ogaaday in Minho uu yahay zombie markaasuu DRno u tagay xafiiska Minho isagoo xirna waji xir wuxuu daaday kiimiko suuxin oo ka dhigaysa Minho mid miir la wuxuu ka xayay barkiisii tijaabo uga sameeyay dhiigkiisii Minho ayaa weydiiyay maxaa uu sameynaysa tijaabooyinka haliska ah DRno wuxuu ku jawaabay waxaan aad u jeclahay xayskeyga balse way iga dhimtay in la'aanteeda ma noolaan kari markaan waxaa siiyay daawo tijaabo keentay in uu noolaa sidii zombie hadda waxaan ku dadaalay inaan ka dhigo markale bini'aadan waxay sababtu u ogaad kiim arintan kiimikada halka sharci daradan ku shubo waxaan ku qasbay inaan dilo kiim laakiin muusan halka kiimikadu kuridu ku jiro meedka Minho taasoo keentay Minho si noqdo zombie waxaana runtii Sonia oo raadraac ku haysa Minho waxayna tagtaa rugta DRno laakiin wax xiran tahay waxayna artaa mitri korontada oo soconaysa taasoo muujinaysa in qof gudaha joogo Sonia waxay gashaa gudaha waxayna gaartaa shaybaarka DRno ku Minho xayskiisii zombie ah waxaa sidoo kale kaas ku xirnaa sardoonada kala baara DRno kuwa soo gaan xayskiisii noqotay zombie Sonia waxay fartay labadii sardoonka dibna waxay fartay Minho laakiin intay saddex xayskiisii zombie istasi u dishay Sonia laakiin Minho ayaa markale badbaadiyay Minho wuxuu isku dayay in luuqada zombie ula hadal xaaska DRno laakiin DRno halkaas yimaad isaga wata basoorad wuxuu ku yiraahdaa xaaskiisii cun dhamaan dadkaasi xaaskii zombie waxay bilaabaysaa weerar intay isku dhacayaan Minho ayaa basooradii kala baxay DRno oo si kama u toogtay xaaskii zombie isla markiiba dhimantay DRno aad buu u murugayay ag fadhimeedkeeda fursad ay heleen awga Sonia waxay wacday booliska waxay qabteen DRno waxayna umaninkiiskii dilka kiim la xaliyay laakiin waxayna ogeyn masiibiin soo socota gaarigii booliska DRno saarna ayaa shil galay DRno wuxuu caawiyay daawadiisii tijaabada ahayd markaasuu zombie noqday markuu u dhintay markii ogaadeen arrintan waxayna u dhigeen dabin ku qabtaan waxayna ka xadeen xaaskiisii zombie ahayd xarunta meedka laakiin DRno wuxuu toos u tagay gurigii Minho halka uu xaaskiisii raacay wuxuuna abduud Sonia markuu Sonia qabsanay sarkaal saaxiib la Sonia bastoolad ku qabtay laakiin DRno wuu rasaasta waxba u geyn zombie-ga wuxuuna ka qaaday bastooladii gacantii sarkaalka kor intuusan Sonia dilin Sonia bastooladii ka qaaday sidoo Minho u qabtay Minho dooru toongan la DRno madaxiisa laakiin DRno wuu ogaay Minho naxariis badan yahay taasoo noqotay labadii sardoon ayaa markale iyaga wata waji xir waxayna mareen urkiimika DRno xusuusinayaan wuu suuxay markaasi af xirkiis ka bixiyaan wiil ayaa u tagsugo in DRno u dhintay in kale laakiin DRno ayaa qabtay wiilkii wuxuuna isku dayay inuu qoorta ka gooyo laakiin Minho ayaa madax ka toogtay DRno oo dilay kadibna wuu murgo sababtoo wuxuu rajay in DRno ka dhigi karo bini'aadam rajadiisii way burburtay Sonia waxay isku dayaysaa inay dhiirigeliso laakiin Minho wuxuu ku yiraahdaa mar inaan noqdo bini'aadam been dadka dhex jooga wuxuu ka tagay magaalada Milfog halkaas Sonia waxay sii shaqadeedii sardoonnimada qaybta ugu dambeysay waxay bilaabanaysaa sanad kadib Sonia martiqaad u heshay xafladda Halloween-ka Sonia waa isku diyaasay ugu qaybshay xafladda Halloween-ka sababta waxay ka shaqeyn in laga yaabo in kaas ka hesha Minho tiirkeedii sax iyo noqdo waxayna aragtaa Minho dhex fadhiya xafladda isagoo xiran jaakad cad labadoodii waxay u imaadeen mid midka kale markaasi ogaay in qof lagu dilay xafladani waana kiis in Sonia Minho sidoo jir u baaraan taasi waxay ka dhigtay markale kulan doona si ay u shaqeeyaan kiis cusub halkaas ku dhamaana taxnihiina aan soo wadnay saaxiibayaal waxaan ku xasuusinaa saaxiibna muuqaalka lana gardana ka sawirada hore subscribe ku aad ba u maasantahay waxaan aad ku doonaa inaan soo qalaasino taxana kule aad u xiiso badan intaas lagaan waxaa kule saaxiib mac salaamo waxa ugu weyn inaan kan black afarto si ku soo gaaraan muuqaal aad u xiiso badan ku soo gubin halkani aad ba u maasan saaxiibayaal markale idinka waxa iga dhilaantiina waa abaar